kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogay ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamid ah isku dayadil oo dhowr ah oo lala beegsaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sirdoonka dalka Itoobiya oo arintaasi fashilay kadib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkiisii ugu safri lahaa dalka Itoobiya oo ay ka cudur daalatay dawladda dalka Itoobiya sirdoonka dalka Itoobiya ayaa soo bandhigay 4 wadan oo ay sheegeen in ay abaabulahayaan sidii loo dili lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya taas oo ay ku macneeyeen qodobo dhowr isla markaana la sheegay inuu caqabad ku noqon doono hor u socodka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud hadii aan la dhaafinin madaxweyne hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan la dilin shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo waxa sababay diyaaradda ku gubatay garoonka gudihiisa ee Aadan Cadde rakaabkii saarnaa iyo khasaaraha soo gaaray ayaan sidoo kale warkeena si toos ah ugu eegayna waxa sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ka soo dhoofinaysa oo caqabad hor leh ay haysato hadaba caqabadaasi maxay tahay warkeena ayaan ku faahfaahinayna haduu eeba yiraahdo waxa sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan faahfaahinna ka soo baxaya qaraxii weynaa iyo weerarkii lagu qaaday ciidamada ATMIS ee magaalada Muqdisho marahayay iyo khasaare horle oo ka soo kordhay halkaasi ayaan warkeena ku eegayna haduu eeba yiraahdo balse waxaan si qadarinyo xushmad leeyahay ka codsanayna hadii uu ku soo gaaro muuqaalka like sar oo aragtidaada nagu reeb qaybta commentiga nagu soo biir oo naga mid noqo oo mar waliba nala soco waana kaga mahadcelinayna la joogaada mahadsanidin aan ku bilownay sirdoonka dalka Itoobiya ayaa ka shifay siro qarsoona isla markaana la garan lahaa cid ka dambeysay iyadoo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la sheegay inuu ka badbaaday isku dayadil oo dhowratan iyo intii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aamusnaanta lagu yaqaano ayaan ka hadleen qaraxyadaasi iyo sidoo kale isku dayada dil ee loo qorsheeyay hase ahaatee sirdoonka dalka Itoobiya saaxiib dhowna la madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana si toos ah ula socda ayaa ka shifay siro oo banaanka keenay masare oo ka tirsan sirdoonka dalka Itoobiya isla markaana galaangal hoose ku leh dalka Soomaaliya ayaa sheegeen in madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalal dhowr ay la damacsan yihiin inay dilaan taasi oo ay ku macnaynayaan in dawladahaasi ay doonayaan gabi ahaanba inuusan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan mar dambe saameyn ku yeelanin siyaasadda dalka Soomaaliya dalalka la sheegay in arintaasi ka dambeeyaan ayaa lagu sheegay inay yihiin dalka Kenya Imaaraadka iyo sidoo kale dalal dhowr oo ayagu doonahaya ama danahooda ka waayay xilligii uu madaxweyne ahaa isla markaana la sheegay inuu caqabad ku ahaa in ay wax walba ay ka sameystaan dalka Soomaaliya sirdoonka dalka Itoobiya ayaa sheegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in amaankiisa si adag loo adkeeyay isla markaana uu iskaga baxaba dalka Soomaaliya maadaama ay dalal waaweyn qorsheynayaan sidii ay u dili lahaayeen isku dayadil oo dhowra ayuu ka badbaaday leeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaasi oo isagana wax wara uusan ka soo saarin isku dayahaasi iyo cid ka dambeysay hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA saraakiil ka tirsan horeyna ula soo shaqeysay ayaa ku areereysan isla markaana xaaladda si hoose ula socda iyagoo marar badan fashiliyay qaraxyo iyo sidoo kale dilal loo qorsheeyay oo dalalkaasi ay ka dambeeyeen dalka Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dalka Djibouti iyo Kenya ayaa iska kaashanaya sidii loo dili lahaa madaxweynaha isla markaana loo dhaafin lahaa dalka Soomaaliya oo mar dambe uusan siyaasadda ugu yeelanin arintaasi ayaa lagu macneeyay laba arimood oo kala ah shacbiyadda uu haysta ee shacabka Soomaaliyeed oo ka dhigi kara ama siyaasadda mar labaad ku soo celin kara iyo sidoo kale dhaqaaqii hore xilligii uu shaqeynayay ee dawladda ama madaxweynaha uu ahaa oo dalalkaasi uu ku adkeeyay isla markaana arimihii ay doonayeen ay ka fushan waayeen dalka Soomaaliya dalalkaasi ayaa qorsheynaya inuusan mar labaad soo laabanin iyadoo shacabka Soomaaliyeedna ay si weyn ugu hanqaltaagayaan inuu soo laaban doono 5 sano markay ay dhamaato shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale xubno aad u tiro badan oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka iyo wasiirro hore ayaa qorsheynaya sidii mar labaad loo soo celin lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo inta badan shacabka Soomaaliyeed ay iyagu ugu riyaaqayaan inuu mar labaad soo laaban doono dalalkani ayaa qorsheynaya sidii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo dhaafin lahaa oo mar labaad uusan ugu soo laaban doorashada soo socota ee dalka Soomaaliya ka dhici doonto 4 sano kadib arintaasi oo dalalkani ay ku noqon doonto arin aad u adag hadii uu mar labaad soo laabto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa sidoo kale lagu sheegay in qoraalka ay soo dhigeen sirdoonka dalka Itoobiya in dalalkani ay doonayaan in uusan hore u soconin dalka Soomaaliya isla markaana ay doonayaan inay gacanta ku hayaan oo uu sidan qalalaasaha siyaasadeed uu oga taagna
feejignaado. Arrintaasi iyagoo ka duulaya ayaa la yidhi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo yuusan mar labaad soo laabanin ee hal la dilo. xubno ka tirsan dalalkaasi ayaa si toosan loo daba dhigay oo la doonayo in loogu adeegsado sidii loo dili lahaa, islamarkaana wado walba oo lagu dhaafin karo dalka Soomaaliya loo maro, iyadoo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inta yar ee xilka u wareejiyay intaasoo isku day uu ka badbaaday, islamarkaana arrintaasi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka gaabsaday oo isaga naftigiisa uu og yahay inay dalal badan ay ku daba jiraan. arrintani waxay soo baxday kadib markii dowladda Soomaaliya ay heshiis cusub la saxiixday dalka Kenya, islamarkaana qaadka dalka Kenya laga dhoofiyo ay u fasaxday dhoofinta dalka Soomaaliya, ayna iska xidhay qaadkii ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa arrintaasi ka xanaaqday, islamarkaana soo bandhigtay xogo iyo sidoo kaleeto sir la xidhiidha habdhaqanka iyo sidoo kaleeto qorshaha dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dalalka dabada ka riixaya ee la doonayo in lagu dilo madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. arrintan sirdoonka ay soo bandhigeen ayaa dhammaanba shacabka Soomaaliyeed fajac iyo yaab ku noqotay, iyadoo dad aad u tiro badan arrintaasi ay ka xumaadeen, islamarkaana xildhibaanada golaha shacabka iyo sidoo kaleeto wasiirada ay qorsheynayaan in mooshin laga keeno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, maadaama madaxda qaranka uu beegsanayo oo uu amnigooda khalkhal uu soo galay. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo aad u tiro badan ayaa maalmihii ugu dambeeyayba kulamo ku lahaa magaalada Muqdisho, kuwaasi oo doonaya in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidii loo badbaadin lahaa, islamarkaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud looga qaban lahaa dalka, maadaama uu ku dhaqaaqay falal aan soo dhaweyneynin oo ka hor imaanaya horu socodka dalka Soomaaliya iyo sidoo kale jiritaanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu xusuustaa 5 sane ee uu maamulahayay dalka Soomaaliya shakhsi ka hufan musuqa iyo sidoo kaleeto nin jeclaysiga, iyadoo dalal badan iyo sidoo kale bangiga adduunka iyo deeq-bixiyaasha iyo hay'adda MSF ay ku tilmaameen shakhsi aad u fiican una baahan in lagu daydo, islamarkaana 5 sane ee uu maamulahayay dalka Soomaaliya horay u dhaqaajiyay dhaqaalihiisana kor u soo qaaday, taasi oo ay ka duulayaan ayna ka marseersan yihiin dalalkani ayna doonayaan Soomaaliya inaysan hore u dhaqaaqin, ayay uga duulayaan sidii loo dhaafin lahaa dalka oo loo dili lahaa. waxaana hubaal ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddii uu soo laabto doorashada soo socoto inuu si toosa u soo geli doono, oo shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale baarlamaankaba ay si weyn ugu riyaaqsan yihiin, islamarkaana ay sugi laayihiin dhammaashaha 4 sane ee soo socota. arrintaasi ayayna ka duulayaan dalalkani, waxayna isgo'aansadeen ama iska kaashanayaan sidii loo dili lahaa ee loo dhaafin lahaa dalka Soomaaliya uusan u gaadhin doorashada soo socoto. shil diyaaradeed ayaa ka dhacay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo la sheegay inay diyaaradii gabi ahaanba ay burburtay. diyaaradani ayaa la sheegay inay u kireysneed Juba Airways, islamarkaana ay ka dawaan gashanay dalka Kenya, waxaana saarnaa 36 qof oo rakaaba, halkaasi oo dadkaasi ay ka badbaadeen dhibaatada soo gaadhay diyaaraddaasi. diyaaradda ayaa gabi ahaanba ku burburtay oo ku gubatay gudaha garoonka Aadan Cadde, iyadoo wax dabdamisa iyo sidoo kale wax badbaadina aan lagu samaynin. diyaaradda ayaa ku basbaashay halkaasi, waxayna u kireysneed diyaaradan Juba Airways sidaan horeyba u sheegnayba. diyaaradda sumadeeda ayaa lagu sheegaa 5Y-JX, iyadoo diyaaradani ay tahay diyaaradaha xamuulka, islamarkaana ka dawaan gashan dalka Kenya, ayna leedahay shirkadda Juba Airways, waxaana gabi ahaanba diyaaraddaasi ay ku gubatay gudaha garoonka Aadan Cadde. markii ugu horeysay oo shil noocan oo kale ay ka dhaco garoonka gudihiisa ee magaalada Muqdisho. arrintani ayay shacabka si weyn ula fajacsan yihiin, islamarkaana dadka u safraya dunida daafaheeda walaac weyn ay ka qabaan diyaaradahan ay leeyihiin shakhsiyaadka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. cabsi weyn ayaa soo wajahday dadka u safra dalalka kala duwan, islamarkaana markii ay maanta diyaaradda saaday usoo cagdhigatayba uu dab qabsaday, islamarkaana ay gebi ahaanba basbeeshay. cabsi weyn ayaa soo wajahday shirkadaha iyo sidoo kale khasaare aad u ballaaran oo soo gaadhay shirkadda Juba Airways oo gabi ahaanba diyaaradeeda aan waxba laga badbaadinin oo halkaasi ku gubatay. safarada ayaa la filayaa inay dib u dhici doonaan, iyadoo cabsi iyo sidoo kale walaac weyn ay ka qabaan safridda iyo sidoo kale adeegsashada shirkadahan gaarka loo leeyahay oo diyaaradahooda inta badan lagu tilmaamo inaysan dayactir fiican aysan haysanin, islamarkaana aysan awoodin qarashkii lagu bedeli lahaa diyaaradahaasi oo ay isticmaalayaan diyaarado horay u soo shaqeeyay oo daalayba, islamarkaana hadda rakaabka aad moodid inuu hoos u dhici doono. ganacsatada qaadka ka dhoofisa dalka Kenya ayaa walaac weyn ka muujiyay qaadka iyo bilaabashadiisa iyo caqabada cusub oo soo wajahday. maalintii Jimcada ayay ahayd markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale dhigiisa Uhuru Kenyatta ay kala saxiixdeen fasaxida qaadka iyo sidoo kale iskaashiga labada dhinac ee ganacsiga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Kenya.
hase haatee wax bilowday ma jiro oo isla markaana ganacsatadan waxay si weyn uga walaacsan yihiin shuruudaha cusub ee ay soo wado wasaaradda beeraha ee dalka Kenya. waxayna ganacsatadu sheegeen inay isdiyaarsan yihiin isla markaana ay shugahayeen shatiyada la siiyo ee ay bixiso wasaaradda beeraha ee dalka Kenya, halkaasi oo ay sheegeen inuu dib dhac weyn ka taagan yahay isla markaana wasaaraddu ay doonayeen inay dedejiso fasaxida qaadka. beeraleyda iyo sidoo kale ganacsatada ka ganacsata qaadka dalka Kenya ayaa iyagu walaacaasi qaba isla markaana baraha bulshada soo marinaya oo ka codsanaya dowladda dalka Kenya in ay fasaxdo isla markaana ay dedejiso shatiyada lagaga ganacsanayo ee lagu dhoofinayo qaadka kasoo baxa dalka Kenya. ganacsatadan ayaa sheegeen in wasaaradda beeraha ay daahinayso shatiyada iyo sidoo kale fasaxida iyo bilaabitaanka qaadka ganacsiga isla markaana ay si weyn ugu rajo weynayeen inay wasaaradda beeruhu ay dedejiso qaadka iyo fasaxidiisa iyo sidoo kale shatiyada loo baahan yahay iyo shuruudaha ay sheegtay inay kordhigtay oo ay ku soo kordhistay dalaga kasoo baxa dalka Kenya. waxay sidoo kale ganacsatadani ay sheegeen inay muddo weyn sugahayeen inay ku rajo weynayeen in dowladda Kenya ay dedejinayso heshiisyadii maadaama la saxiixday fasaxida qaadka, halkaasi oo ay sheegeen inay caqabad cusub ka soo korodhay. waxay sidoo kale codsiyo u direen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale wasaaradda beeraha oo ay ka codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu fasaxo ganacsigooda isla markaana muddo dheerba ay shaqo la'aan ahaayeen haddii marba dowladda Kenya iyo Soomaaliya ay ogolaatayna ay u baahan yihiin in sida ugu dhaqsiyaha badan loo fasaxo qaadka. arrintaasi ayaa walaac weyn ka soo baxaysay saacadihii la soo dhaafay isla markaana baraha bulshada si weyn u haysatay iyadoo ganacsatada iyo sidoo kale beeraleyda qaadka ee Meru ay si weyn uga walaacsanayeen isla markaana ay marar badan dowladda federaalk ee dalka Kenya ay ka codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu fasaxo qaadkooda oo ganacsigooda ay bilaabaan maadaama sanado badan aysan shaqo haysanin oo ciyaalkooda ay iskala jiifeen shaqo la'aan iyo sidoo kale lacag la'aan ay ku dhacday. waxayna dowladda iyo sidoo kale laamaha ay qusaysaba baaqiyo kala duwan ay u direen iyagoo baraha bulshada u marinahaya isla markaana sheegay in wasaaradda beeraha iyo sidoo kale cidda ay qusaysaba in sida ugu dhaqsiyaha badan shatiyada loo siiyo si ay u bilowdaan noloshooda iyo ganacsigooda. sidoo kale taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA Mahad Salaad ayaa maalmihii ugu dambeeyayba ku sugan dalka Kenya, kuwaasi oo kala hadlayo qodobo dhowr oo ay ka mid tahay sidii sirdoonka labada dal ay u wada adeegsan lahaayeen xogaha la xiriira argagixisada iyo cid walba oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka soo horjeeda. Mahad Salaad ayaa qorsheynaya in uu dalalka dariska ah uu ka soo xirxiro mucaaradka iyo sidoo kale dadka baraha bulshada isticmaala dhaliilaha u soo jeediyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. arrintaasi oo noqonaysa markii koobaad oo dowladda Soomaaliya ay dowladaha dariska kala hadasho in la cuburiyo shacabka Soomaaliyeed ee ka aragti duwan xukuumadda markaasi jirta. wuxuu sidoo kale Mahad Salaad la sheegay inuu kala hadli doono gobolka Gado oo isagana gabi ahaanba diiday la shaqeynta dowladda federaalka ee Soomaaliya tabashooyin waaweyn oo ay qabaan, iyadoo ay kasoo bilaabatay tabashooyinkaasi xildhibaanadii golaha shacabka oo ay doonayeen in si madax bannaan ay ugu qabsadaan gobolkooda cidda ay doonayaan ay u matalaan xildhibaanada golaha shacabka. maamulka gobolka Gado ayaa sheegay in wax diyaarada halkaasi ka soo degaynin inta tabashooyinkooda laga xalinayo, iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaasi gaadhin oo uu ku mashquulsan yahay safarada dalalka dibadiisa. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intiisii la doortayba wuxuu ku mashquulsan yahay oo uu kala safraya dunida daafaheeda, iyadoo safarkiisi wali uusan soo dhamaanin. la filayeen maanta inuu u safro dalka Itoobiya isla markaana Itoobiya ay ka cudur daaratay safarkiisa ayna ku tilmaantay inuusan Xasan Sheekh imaan karin halkaasi arrimo jira awgood. hase haatee dalka Itoobiya ayaan si toos ah u faahfaahinin oo ku micnaysay oo kaliya beegsiga mas'uuliyiintii hore iyo sidoo kale tirtiridda xiriirkii hore ee ay lahayd dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo habdhaqankiisa ay si weyn u dhaliilsan yihiin. dowladda Itoobiya ayaa arrintaasi ka cudur daaratay oo faahfaahin dheerna aan ka bixinin, hase haatee la xogogaalyo ayaa arrintaasi noo xaqiijiyay. dhinaca kale wuxuu dib u dhac weyn ku imaaday magacaabidii golaha wasiirada oo si weyn loo sugahayay oo magaalada Muqdisho iyo dhammaanba saamilada siyaasadeed ay si weyn indhaha ugu hayeen ayna sugi lahaayeen. arrintaasi oo lagu macneeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safaradiisa uu uga maqan yahay dalka dibadiisa. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo intii la doortayba aan gudaha dalka ku hoyanin asbuuc waxdan isla markaana safaro ku jira. arrintaasi oo saamilada siyaasadeed iyo sidoo kale mas'uuliyiinta iyo madaxdii hore ee dowladda federaalka ama Soomaaliya ka soo shaqeysay
ay si weyn u dhaliilsan yihiin oo ay ku tilmaameen madaxweynaha in loo baahnaa in uu gudaha dalka Soomaaliya uu galo isla markaana uu dhameeyo xukuumadda cusub ee la dhisayana uu wax ka ogaado oo golaha wasiirada sida ugu dhaqsiyaha badan loo magacaabo golaha wasiirada ayaa hadda muddo bil ah qaatay tan iyo intii ra'iisul wasaaraha loo dhaariyay arintaasi oo dadka shacabka Soomaaliyeed ay si weyn ula fajacsan yihiin arinta ka dambaysa laguna meeleeyay in madaxweynuhu safaradiisa uu wadanka ka maqan yahay inay sabab u tahay dib u dhaca ku imaaday magacaabida golaha wasiirada arintaasi oo saamiliyada siyaasadeed ay madaxweynaha muddo badan ka codsanayeen inuu gudaha wadanka ku soo laabto isla markaana la dadejiyo magacaabista golaha wasiirada oo halkaasi ay ku dhamaato tabidda iyo sidoo kale saamiliyada siyaasadeed ee ka buuxda magaalada Muqdisho cidii Ilaahay u nasiibana ay xilka saa ku qabato cidii kalena ay danaheeda qabsato magaalada Muqdisho ayaa tan iyo intii doorashada madaxweynaha ay bilaabatay ayaa la circiraysa siyaasiyiin iyo sidoo kale dad doonaya ama quudareynaya in ay helaan wasiir ama sidoo kale shaqaale kaleetaba arintaasi oo dadka dhibaato ku ah oo hadda hadii lagu dhawaaqo golaha wasiiradana ay danahooda qabsan lahaayeen oo ay iskaga tagi lahaayeen magaalada Muqdisho daawadayaal qodobadaasi ayaa warkeena ugu dambeeyay tan iyo kulanti dambana waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.